cumar haddaan fiirina qisadii loo dilay waxaan soo tilmaannay inuu magaalada madiina qaybaheedii ama jidadkeedii uu maraayay. wuxuu arkay dukaan baa la yidhi. dukaankaa waxaa joogay ama gadaayay ghulaam ama wiil la yidhaahda abulu'lu almajuus, amase wuxuu ahaa nin xadaad ah oo farsamo yaqaan ah oo aad wax u sameeya. wuxuu samayn jiray inta badan bahalka riiqa ah ama shiidka ee lagu shiida daqiiqda iyo shaciirtii waxyaabaha la midka ah. cumar wuu soo dul istaagay. war man anta buu yidhi, yaa tahay? wuxuu yidhi waxaan ahay ghulaamkii majuusiga ahaa abulu'lu. waxaad samaysaa xaaladahan miyaa? haa buu yidhi. waxaan maqlay buu yidhi cumar inaad samaynayso shiidka amase bahalka daqiiqda lagu sameeyo oo dabaysha ay ku shaqaynaysa ama hawada. war haddaad doonto waxaan kuu samaynayaa buu yidhi shay laga maqli doona haddaan sameeyo mashaariqa alardi wa maghaaribaha, waa bari iyo galbeed ayaan samayn doonaa. cumar waa isaga soo jeestay. ninka waa tawacadan, waa hanjabayaa, waxyaabuu samaynayaa goodi ah. cumar waa isaga soo tegey. isla maalinta abulu'lu almajuus wuxuu samaystay toorey ama bilaabo ama midi 2 af leh ayuu bilaabay inuu sameeyo. 2 bilood oo kaamil ah bay taariikhda gobolka mida tilmaantaa inuu sun dhex gelinayay. sababtu waxay tahay haddii uu ku dhufto oo xooggii uu ku dhuftay axadkii taciinkee lagu duray ay awoodi weysay dili weyso inay sunta korkiisa ku saaqdo oo ay suntu markaa disho. saasoo markaa uu ugu talagalay. masaajidadu ma ahayn masaajidada maanta oo kaleo iftiinka iyo nalka meel kasta kaga yaala, siraaj aw siraajayn, 1 faynus ama 2 faynus baa tiilay. intaanoo dhan mugdi u noqonaa. intaasoo dhan waa mugdi. abulu'lu maalintii ugu dambaysay wuu soo baxay, masaajidka ayuu soo galay, waana ugu dhuuntay oo meel buu markaa galay ilaa masaajidka waa mugdi. cumar radiallahu tacaala canhu wuu soo kacay sida caadadiisu ahayd. wuu soo galay masaajidka qubayla subx intaan subaxii la gaarin. kuwa hurdaayuu kiciyey. intii qiyaam tukanaysay daagnayd buu yidhi haye joojiya idinkana. wuxuu tilmaamay in arrimooyin fara badan oo noocaas uu samaynayo. abulu'luna uu sugaayo, uu ku jira meeshii markaa uu ku dhuunsanaa. salaaddii baa la aqimay. cumar waa galay salaaddii. wuxuu guda galay inuu takbiirto oo salaaddii u xirto. allaahu akbar. salaaddii buu markaa xirtay. staw dadku toosiyey. weliba cumar waxaa la tilmaamaa safafka marka uu simaayo 3 saf ee hore gacantiisa ku toosin jiray, inta kalena dad buu u diri jiray radia allahu tacaala canhu. markuu sidaa sameeyey oo allaahu akbar uu yidhi oo cabbaar qiraa'adii uu aqriyey, abulu'lu wuxuu damcay inuu soo baxo oo tacniyu ku duro ii sheeg cumar ibni khataab. laakiin wuxuu ku fakeray haddii hadda aad u baxdo waxaa suuragal ah dad soo daahay inay jiraan oo gadaal laga yimaado oo lagu qabto. marka bal sug ilaa rakacada labaad uu u istaago, dadka saxaabada iyo muslimiintana ay ku soo aruuraan masaajidka in badan ay galaan ii sheeg safafka. markii rakacadii koowaad uu dhammeeyey oo tii labaad uu u kacay oo qiradii uu wado ayuu ku soo baxay. wuxuu ku dhuftay baa layidhi 3 tacni, 3 duritaan. midna sadrigu uga dhuftay waa laabta, midna jembiga ayuu uga duray, ta saddexaadna taxta suratihi waa xundhurta hoosteeda. weliba midda xundhurta hoosteeda ah ayuu xoog ugu duray baa la yidhi. xoog buu ugu jiiday ilaa gobolka mid ah mindhiciradiisa cumar ay bannaankay u soo baxeen. intaa ka bacdi cabdiraxmaan ibni cawf ayaa salaaddii meeshii ka sii waday. cumar radiallahu tacaala canhu markuu saa ugu dhuftay uu dhulka ku dhacay. ninkii abulu'lu ahaa intuu ka baxayaa marka? meeluu ka baxa ma leh. hore masaajidka ma laha albaab ilaa aakhir inuu ka soo baxa maahane. wuu soo baxsaday oo wuxuu soo dhex maray safafka. bahasha uu samaystay uu cumar ku dilay 2 dhinac bay wax ka dishaa, 2 afley bay ahayd. 2 saf ee uu soo dhex maro qofka midig iyo bidix ka jira wuu ku dhufanayey, wuu ku dilaayey ilaa uu dhaawacay uu ku dhuftay baa la yidhi 13 nin oo mtaqaanaa saxaabada ka mid ah. 7 isla meeshay ku dhinteenba. wuu ka soo dhex baxay. saasuu markaa u soo maray, gadaal buu markaa joogaa.
dad baas kii damca inuu ku soo aado qabto wuu ku dhuftaa, kii damca inuu soo aado miduu dhaawacaa, miduu qoorta uga duraa, miduu madaxa ka saaraa, miduu waxyaabo badan ku sameeyaa. waa la qaban waayey. meeshuu taagan yahay nin muslimiinta ka mid ah ayaa wuxuu damcay markaa inuu ku soo boodo uu qabto, markaasuu ushii bahashii u watay uu saas ugu soo qaaday inuu ku dhufto. dib buu u baxay muslimkii. busto uu watay iyo garabka u saarnaa, ileen saxaabadu diyaar ma ahayn. muslimiinta maalintaa joogtay diyaar uma ahayn dagaal. salaad baa la soo aaday. arrintan baa dhacaysa laysma dhehaynin. intaa ka bacdi go' intuu qaaduu ku tuuray. go'ii wejiga markuu saa uga saarmay yaa abuulu'lu wuxuu is yidhi waa lagu haleelay marka, waa intuu iska furaayay iyo wakhtigay qaadanaysaa. waa lagu qabtay, markaasuu naftiisii geliyey, wuu isdilay asaga. saasuu ku dhintay abuulu'lu. markii xaalku meesha maraayey, cabdulaahi ibnu cumar wuxuu yidhi, cumar ibnualkhadaab amiirkii mu'miniinta waxaan damacnay inaan qaadno marka. dhiig aa socda. waxaan damcay buu yidhi gacanta inaan saas uga saaro meesha dhiigga ka socdo. waayo qofku markay jareexo ay gaarto waxaa la rabaa inuu gacanta saaro si dhiigga uu istaago, ilaa intuu dhakhtarka tago oo laga daaweeyo ama cilaaji waxyaabo kale uu helo. gacantaa saas loo saaraa meesha dhiigga. marka cabdullahi ibn cumar wuxuu yidhi waxaan damcay inaan gacanta saas u saaro oo aan celiyo. gacanteeda waxayba sii gelaysaaba calooshii, hoosay ku sii socotaa. waa xooggii uu ugu jiiday iyo sidii uu mtaqaanaa u jiiday oo kale dhibaatadeeda darteed. intaa ka bacdi cimaamadiisuu soo qaaday, wuu ku radbatay, wuu ku xiray. markuu ku xiray baa la soo qaaday cumar radia allaahu canhu oo miir daboolan. ma laha wax xis ah, ma laha wax garaad ah, ma laha wax dareen ah. waa la jiifiyey sariirtiisii. muslimiintii qaar dhibaato, waa la naxsan yahay. yaa amiira almu'miniin, yaa abi xafs, hadal ma laha, dareen ma laha, xisi ma laha. mintaa ka bacdi wuxuu soo ifaaqay, uu miir soo helay, uu soo naaxay markay cadceedtu soo bixi rabtay. markuu saas indhaha u soo kala qaaday, rag fara badan baa midigtiisa fadhiya, yabkuun, way oynayaan. qolo fara badan oo dumar ah min waraa'i xijaab ku jira dhinaciisa. isla markii cumar radiallaahu canhu saasuu isku fiiriyey, dhiigaa socda oo daadanaya. ma dhihin dhiiggan maxaa iga keenay, ma dhihin raggan maxay u oynayaan, ma dhihin dumarkan inta ku jira maxaa ku dhacay, say wax u jiraan. laakiin awal kelima ee uu ku hadlay nebigan markuu dhimanayay waan soo tilmaannay. hadalka ugu horreey ee markuu soo kacay uu yidhi wuxuu ahaa asalla annaas, dadkii salaada ma tukadeen. cumarna wuxuu yidhi sallaytum, ma tukateen, salaaddii ma tukateen. qaaluu nacam, haabay dhaheen. qaala alxamdu lilaah, ilaahay baa mahad iska leh. waayo laa xada fi lislaam liman taraka asalaa. xad iyo dheef kuma laha, nasiib kuma laha islaamka ninka salaada ka tegey. cumar saasuu markaa yidhi radia allaahu canhu. weli uma dhaqaaqin inuu baaritaan sameeyo dadkii dilay iyo waxyaabaha meesha ka dhacay. wuxuu yidhi yaa cumar, yaa cabdullaah, waa wiilkiisa, cabdulaahiyow biyo ii keen buu yidhi. galaas biyaa loo keenay cumar radia allaahu tacaala canhu. maya buu yidhi, biyaha ma cabaaya, waxaan rabaa biyo aan ku weysaysto, biyo aan ku weyse qaata ii keen. saasuu markaa yidhi. markaasuu yidhi aabbo waa maxay, dhiig iyo waxbaa kugu yaala iyo dhaabac, ii keen biyaha buu yidhi. yaa laa umma laka, hooyo kuuma sugnaatee, ii keen biyaha, waa ku weys qaadanaa. biyihii baa loo keenay cumar. waayo aniga salaaddii ma tukanin buu yidhi, salaaddii waxbaa iga kala dhex galay. biyihii baa loo keenay cumar, waa weyse qaatay radia allaahu tacaala canhu. wuxuu yidhi isoo fadhiisi. cabdullaahi wuxuu dhahay aabba sidaada isaga jiif oo jiifkaaga ka tuko. maya buu yidhi isoo fadhiisi. markii wax yar la soo leexiyey yaa waxaa furmay haddana dhaawacii. wuxuu bilaabay inuu dhiig badan keenayo. cimaamaddii baa lagu adkeeyey, dib baa markaa loo celiyey. sidiisii ayuu markaa ku tukaday. markuu hubsaday inay muslimiintii tukadeen, in salaaddii si fiican loo tugtay, asagiina salaaddii subax uu dugtay oo adkaartii subaxii kulli uu akhriyey, ayuu yidhi man qatalanii, yaa i dilay, yaa i dilay. abuulu'lu almajuusi baa ku dilay baa la yidhi. abuulu'lu ninka la yidhaahda ayaa markaa ku dilay. alxamdu lilaah, ilaahay baa mahad iskale buu yidhi, aan dilkayga ku sababin qof ilaahay u sujuuda subxaana wa tacaala. qof muslim ah oo iimaan sheeganaya, ilaahigii aan ku sababin oo dhiiggayga iyo dilkayga alla sabab aan uga dhigin, ninka noocaas ah, allaha noocaas ah ayaa mahad iska leh. intaa ka bacdi xaalku markuu meesha u maraayey,
cumar ibn alkhadaab dadkii wuu la dardaarmay in badan buu arrin fara badan u sameeyey waxyaabo u sheegay kadib wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cumarow waxaad u tagtaa caaisha waxaad fasax iiga soo qaadaa in laygu aaso meesha bannaan waayo meesha bannaanayd nebiga meeshuu ku duugnaa abuubakar baa lagu dugay oo labaad hal makaan baa dhinnaa meeshaasaan kaa codsanayaa buu ku yidhi dheh laakiin amiiruulmu'miniin haydhihine cumar baa ku soo yidhi dheh maanta aniga mu'miniinta amiir ma u ihiye caysha oynaysa ayuu u tegey arrintii way ka oggolaatay dib baa loogu soo celiyey waa iska dumar buu yidhi waxaa dhici karta inta aan noolahay inay iga xishoonayso ee hadhow haddii aan dhintana yaan laygelinin ee mar labaad fasaxa layga qaado haddii ii fasaxdana igeliyo meesha ha laygu duugo haddii aysan ii fasixinna ha laygu celiyo buu yidhi ama ha laygu duwo qubuuraha muslimiinta way u fasaxday cumar ibnu alkhadaab radia allahu tacaala canhu waxaa jeer uu la noqday oo lala aasay nebiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam